habeen wanaagsan kuna soo dhawaada telefishinka BBC Somali qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxa kamid ah musuqmaasuq ayaa lagu eedeeyay ku dhawaad 100 mas'uuliyiinta isboortiga Kenya iyo galbeedka Afrika muuqaal ayaan laga duubay dawladda Itoobiya waxay ballan qaaday in ay ganacsada gaarka u furayso shirkadaha waaweyn ee dawladda haddaba taasi kor ma u qaadaysaa dhaqaalaha dalka kadib markii ay jaamacadda dhamaysay shaqana ay weysay waxay bilowday karinta oodkaca iyo ka ganacsigiisa Sumaya Nuur Cabdullaahi ayaa inooga warrami doonta ganacsigeeda in ka badan 100 ka tirsan saraakiisha ciyaaraha galbeedka Afrika iyo Kenya ayaa laga dhex arkay kamera iyaga oo qaadanaya lacag intii uu socday howlgal baaritaan ah wuxuu qayb ka ahaa baaritaan uu sameeyay wariyaha isqariye ee Ghana u dhashay Anas Armiyu Anas barnaamijka baaritaanka ee BBC Africa ayaa si gaar ah u helay muuqaaladii ugu dambeeyay kaaliye garsoore koobka adduunka oo ka soo jeeda Kenya ayaa la arkay isaga oo qaadanaya $600 uu siiyay nin isaga dhigay saraakiisha horyaalka koowaad ee Ghana Axmed Xaaji Xasan ayaa faahfaahinaya ninkan lacag ayuu ku guranayaa bac waana Kwesi Nyategni madaxa xiriirka kubadda cagta ee Ghana waana ninka labaad ee ugu awooda badan kubadda cagta ee Afrika nin iska dhigay ganacsade doonayo inuu maalgashado ciyaaraha Ghana ayaa siiyay $65,000 lacagta adeega laakiin ninku waa wariye isqarinaya oo baaraya musuqmaasuqa hareeyay kubadda cagta ee qaaradda waxaan shaki ku jirin in ciyaarta Afrika ugu caansani ay tahay kubadda oo malaayiin qof ay si aan caadi ahayn u jecel yihiin balse shacbixintan miyay dhaawacaysaa jacaylkooda kubadda saacado badan kaamiro qarsoodi ah oo ay aragtay BBC-da waxa ay qabatay boqolaal garsoorayaal iyo saraakiil qaadanaya lacago caddaan ah ka hor ciyaaro caalami ah iyo kuwa gudaha ah taasoo xadgudub ku ah shuruucda kubadda iyo kuwa FIFA waxay gaartay ilaa meesha ugu sarayso Rangay Marwa oo u dhashay Kenya waxaa la filayay inuu qayb ka noqdo koobka adduunka ee Ruushka ka furmaya waa kan asagoo $600 ka qaadanaya qof iska dhigay sarkaal ka tirsan horyaalka koobaad ee kubadda Ghana baaritaankan waxaa sameeyay Anas Armeyaw Anas wariyaha baaritaanka sameeyo inta la ogyahay ugu wanaagsan Ghana wajiga ayuuna qarsadaa qof kasta ma ogola shaqadiisan Charles Bentham waa qareen wuxuuna sheegay in tani ay khiyaano tahay it is wrong to induce somebody by waa qalad in qof lala abaaro qancinka faa'iideysi ah lacag badan iyo wax kalaba kadibna la dhaho qofka musuq buu sameeyay sharcigeenna waxa uu dhigayaa in bixiyaha iyo qaatahu ay isku dambi yihiin Anas wuxuu diiday dhaleecayntan wuxuuna sheegay in dadkan aan la qasbin BBC-da waxa ay la xiriirtay labada qof ee warbixinta ka muuqdo Kwesi oo weli haya xilkiisa Ghana kana mid ah golaha FIFA waxa uu diiday inuu jawaab bixiyo FIFA waxa ay sheegtay in Aadan Marwa uu ku wargeliyay inuu iska casilay xilkiisa kaaliyaha garsooraha ee koobka adduunka wuxuuna diiday in uu qalad sameeyay inkastoo ay jiri karaan su'aalo ah sida loo sameeyay baaritaankan waxay taageerayaasha qaaradda oo dhan ku reebaysaa walwal ah ceebta gaartay kubadda cagta ee Afrika Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu leeyahay waxaan sii daynay maxaabiista siyaasadda dadaal nabadda lagu galayo Eritreana waan la galnay iyo war u wanaagsan dhaqaalaha dalka taasi oo IMF sheegtay inaan nahay dhaqaalaha ugu kobaca dheer qaaradda waxa uu wax badan oo muhiim ah ayaana jira ayuu yiri oo gacanta dawladda ku hayna taasina waa isbedel waa kan Qalib Xasan Baarud tobanaan sannadood dawladdu waxay si adag gacanta ugu haysay dhaqaalaha Ethiopia Ethiopian Airways
waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn Afrika uguna faa'iidada badan waxaana maamula dawladda sida shirkadda isgaarsiinta ee Ethio Telecom waa isbeddel weyn oo siyaasadeed isbahaysiga talada dalka haya ayaa ku dhawaaqay inay dawladdu dhaqaalaha u furi doonto maalgashadayaasha hantigoosadka ah waxay ila tahay tallaabo fiican oo xoojinaysa adeegga hadda dhiirigelinna u ah in shirkadaha caalamiga ah ay maalgashadaan Itoobiya waxaa ka dhalan karta waxyeello lama filaana sida in khayraadka dalku dibadda u baxo laakiin waa tallaabo lagama maarmaan ah aniga aragtidayda khasaaraha faa'iidada ayaa ka badan dalka waxaa jooga dhallinyaro badan oo u baahan in dawladdu u abuurto shaqooyin iyo fursado waa go'aan ay soo dhoweeyeen dad badan tan iyo hadda dawladdu waxay ka cagajiidaysay cadaadiska ah inay furto mid ka mida dhaqaalaha Afrika ugu korista badan dawladdu waxay caburisay ganacsiga gaarka ah qayb weyn ayay dhallinyarada ka yihiin dadweynaha sidaa daraaddeed in badan waa inay helaan si loo sameeyana waa in maalgashiga gaarka ah la dhiirigeliyaa qorshaha ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuu cad yahay laakiin Itoobiyaan badan ayaa raba inay ogaadaan faa'iidada isbeddelkan faahfaahin dheeraada ku saabsan warbixintan iyo kuwa kaleba waxaad ka heli kartaa bogga BBC Soomaaliya adigoo ka galaya moobilkaaga bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka maanta madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kulanka 12 bishan la yeelanayo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ee Singapore ka dhacaya uu qabsoomi doono ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa Washington u jooga si uu wada hadal ula yeesho madaxweyne Donald Trump tani ayaa qayb ka ah diblomaasiyad caalami ah oo lagu xoojinayo kulanka madaxweynaha Mareykanka iyo kan hogaamiyaha Kuuriya Kim Jong Un ee Singapore ka dhacaya booliska Ciraaqna waxay sheegayaan in ugu yaraan 16 ruux lagu dilay qarax ka dhacay meel u dhow masjid Shiicada oo ku yaala degmada Sadra ee Baghdad afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu sheegay in masjidka qof sharci darro ah lagu kaydiyay kuwaasi oo qarxay markii la saarayay gaari halkaasi taagnaa weerar argagixiso ayuu ku tilmaamay wuxuuna sheegay in ciidamada ammaanka ay baaris fureen nin Usbek ah oo weerar ku geystay gaari xamuul ah oo ay ku dhinteen 5 ruux waddanka Sweden sanadkii hore ayaa xabsi daa'in lagu xukumay oo dambiye argagixisana loogu xukumay Rakhmat Akilov oo 40 jir ah ayay kooxda dawladda Islaamka la baxday uu taageersanaa ka hor inta uusan weerarka geysan dacwad oogayaashana waxa ay ku qasbanaadeen inay caddayn u helaan in uu waddanka waxyeeleynayay maadaama aysan kooxda IS sheegan in weerarka ay ka dambeeyeen saynisyahanada ayaa horumar weyn ka gaaray dagaalka kansarka maskaxda iyagoo adeegsanaya tallaal cusub dawada hadda jirta waa in ay qayb la jaraa oo qaybta jiran kadibna la adeegsadaa daawooyinka kiimikada ah balse tijaabadan waxaa la isticmaalayaa difaaca jirka tani waxa ay kordhisay nolosha bukaanada ugu yaraan 6 bilood maxamed xaraare ayaa ka warramaya muuqaalkani waa burada halista ah ee glioblastoma 3 sano ka hor ayaa laga helay maskaxda Nigel iminka waxay u muuqataa inay ka suushay ma aragno wax caddayn ah inay bura fadhido ama soo noqon karto Nigel waa bukaan ku jira cisbitaalka King's College ee magaalada London waxaa halkan si tijaabo ah u qaadanaya talaal in ka badan 300 oo qof oo isxilqaamay waxaa jira sheekooyin argagax ah heerka badbaadaduna aad ayay u hooseysaa sidaa daraaddeed caawimaad kasta waa wax wanaagsan oo aad doonayso inaad qabsato oo aad la ordo aad ayaan u nasiib badanahay inaan ka mid noqdo kuwa ugu horeeya tijaabada helay dawadan ayaa la leeyahay waxa ay kordhisay xilliga difaaca iyo badbaadada mid ka mid ah 3 bukaan ee qaatay ayaa badbaaday muddo 40 bilood ah iyadoo ay qaar 7 sano ka badan ku nool yihiin haddaba dawayntani sidee bay u shaqaysaa marka ugu horreysa dhaqaatiirta qalliinka ayaa burada ka saaraya bukaanka dabadeedna waxay ku qasayaan unugyo ka mid ah habdhiska difaaca jirka kolka unugyada difaaca ayaa baranaya buradan kansarka ah waxaana u sahlanaanaysa inay iska difaacaan
unugyada ayaa loo samaynayaa tallaal shakhsiyadaysan oo qaas u ah bukaan kasta oo qaata. burada waxaannu u saarnaa sida ugu macquulsan si aannu u helno dhammaan borotiinka iyo intijanka kala duwan si loo baro habdhiska difaaca jidhka. waa dawo khaas u ah bukaanka wakhti cayiman. Kat Charles kama mid noqon dadka nidaamkan ka qayb galay. 3 sano ka hor ayay tallaalka iibsatay islamarkaana qaadatay. 6 biloodba cirbad kordhin ah ayay qaadataa ilaa iyo iminka wax raad buro ah lagama helin. wiilkayga Jacobna waan korsan karaa, reerkaygana waan hayaa. waxaan caddayn u ahay in daawadani ay ku badbaadin karto oo ku badbaadin karto wax ka badan 6 bilood. in ka badan 3,000 oo qof ayaa sanadkiiba dalkan UK buradan galeeblastoomada laga helaa. sidaa awgeed tallaalkan ayaa noqon kara tallaabo weyn oo looga hortegi karo kansarkan maskaxda gala. wararka ciyaarahana tartanka tenniska French Open, Rafael Nadal waxa uu soo gaaray wareegga 4 isagoo ka adkaaday Diego Schwartzman oo ay isla gaareen 4 gacmood. roob ayaana hakiyay ciyaarta. waxa uu la ciyaari doonaa Juan Martin del Porto. Sumaya Nur Cabdullaahi waa 23 jir. waxa ay ka qalin jibisay jaamacadda Muqdisho kadib markii ay shaqo ka weysay shirkadaha iyo hay'adaha. waxay go'aansatay in ay ganacsi samaysato. hilibka oodkaca ayay fursad ka aragtay iyadoo gurigeeda ku samaysa. waxa ayna quudisaa 7 xubnood oo qoyskeed ah. Wadani Food ayay u bixisay iyadoo rajaynaysa inuu noqdo aasaaska shirkad weyn oo warshadaysa cunooyinka maxalliga. waxa ku bilaaba oodkaca ay sameyntiisa jikada gurigeena oo ahayd meeshii ku sameynaayo oodkaca. inaa oodkaci ku sameeyo jikada guriga qayb ka mid waxyaabihii guriga laga isticmaalo ku sameeyo. caagada yaryar oo ayadana ku caleenta iyo heelka iyo waxyaabahaas lagu shubta oo ahayn hadda wax aniga gooni la iigu soo saaray. aan ku baakage gareeyo dadkina sidaas ugu sii gado ayagoo baakagin ah. oodkacina gurigeyga aan ku sameeyo. caagadihiina ay yihiin wax magaalada Muqdisho laga helayo suuqeeda. sameynta oodkac waxaa ka barta hooyaday macaan kaltoon dirxaash ilaa khayr ha siiye oo yacni guriganaga mar walba ay ka sameynayso. itusi jirtay qaabka loo sameynayo marka ay sameynayso marka intuu dabka saaran yahay waxyaabaha lagu gartay in oodkac uu bislaaday. intuu dabka saaran yahay sida loola tacaamulo iyo tallaabooyinka la qaado marka oodkac dabka uu saaran yahay. xarun gooni oo liigu soo hagaaga ma lahayn. gurigeyga dadku isoo wacayaan taleefanka iga soo wacayaan. marka laga soo tago dalbashada taleefanka ama page-ka Facebook ku leenahay waxaa jira website ayadana sidoo kale Wadani Foods la dhaho. dadka intay soo galaan ay ka soo dalbanayaan qofku magaciisa markuu website ka soo galo wuxuu arkayaa productigeena oodkac ahaa. faahfaahin yar waxaa ku qoran dalbo ama order. macaamiisha ugu badan aan leeyahay aroosyada. sidoo kale dhalinyarada ayagana qoysaskooda aan la joogin iskaabulada ah oo ayagana suuqeed ugu waaweyn aan leenahay dadka naga soo dalbado oo ugu faraha badan oo isleenahay yacni laf dhabar businesskeena iyo maadaama oodka inay samaystaan hawl adag ay ku tahay. caqabadaha ay qabsado waxaa ka mid ah hilibka marka inta suuq uu yaalo iyo marka samaysid kadib farqiga u dhaxeeyo. tusaale ahaan kiilaha oodkaca ee diyaarsan waxaa laga sameeyaa ama uu ka soo baxaa 2 kiilo iyo bar oo hilibka ceedinka. marka dadka qaar waxay ku dhahaan seen oo gadaysaa hilib kiilo oodkac ah inaa inta saneeyay. waxay rabaan inaa u sharaxdid ta kaleeto delivery-ga oo asigana waxyaabaha shaqadeena base-ka ah malahan magaalada Muqdisho guryaha address ama number oo dhehayso guri hebel xaafad hebel ka deganahay number hebel ka deganahay qofku ma ku dhigi karo xaafad hebel deganahay wada hebel ka sii deganahay inuu ku dhaho oo wadadii aad tagtid. ugu dambeyntiina aynu eegno muuqaaladan ay kaamaradu qabatay. gaariga cad ee dhinaca bidix dib ugu baxaya waddo mashquul ah oo ku taala gobolka Ohio waddanka Mareykanka waxa uu ka hor yimid gawaarida kale ee wadada isagoo haddana dhinaca kale marka uu galay dib ugu socday. qaybta gaadiidka Ohio waxay sheegeen in ay cilad farsamo ahayd. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. inta aan kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabad gelyo.